السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا halkan ku xidhan dhammaantiinba waan is salaamay meel kasta aad joogtaan. Muuqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa insha Allah qiso cajiib ah. Haddaba waxba iga hor dhici maayo qisada ku soo dhawaada. Ereyada waxa aan ku soo qoray aniga oo curyaamad ah oo sariirta dul saaran. Shangu ayaa ka soo wareertay maalinkii aan soo dhacay aniga oo kolka xumad awgeed la hadraya. Dhakhtarku qoyskayga waxa uu sheegay cudurka dabeeshu inuu yahay ilaa maalinkan la joogo aniga oo iminka warqadan ku soo qoraya waqti saqbad ku siman. Neerfa kasta oo neerfayaashida ka mid ah uu gariiraya. Waad suuraysan kartaa niyad xumada ay ku sugan tahay gabadh yar oo 15 jir oo dhulyaal ah sariirtana aan ka kici karin. Booska kaliya ee u banaanina uu yahay mitir lagu dhuftay mitir oo labadeeda gacmood ay ku dhaqdhaqaajin karto. Xanuunada qayb ka mid ah waxyaalahooda ereyo laguma qeexi karo. Xanuunada qaarkood ma laha af ay ku soo tibiyaan dareenka xanuunka badan ee ay xambaarsan yihiin. Nolosheeda oo idil weligeed waxa ay ahayd mid aan lahayn af u adeega oo u qeexi kara dareenka dhiilada leh ee ay ku sugan tahay. Noloshayda waxa kaliya ee aan astaysan jiray waxa uu ahaa khiyaalkeeda. Waxa aan u baxsan jiray khiyaalkeeda oo aan magansan jiray. Indhaha ayaan isku qaban jiray. Kadib waxbaan jeclaan jiray. Wax ayaan nici jiray. Waan guursan jiray. Ubad ayaan daadihin jiray. Hawada ayaan sare dhaafi jiray. Adduunka ayaan soo gaafwareeri jiray. Marka aan indhaha kala qaado ayaan ku soo laaban jiray noloshaydii yareed ee cidhiidhiga ahayd. Kolkaas ayaan keliyay si qarsoodi ah u ooyay. Noloshayda dhalanteedkay waxa ay ahayd farxadda kaliya ee aan haysto ilaa laga soo gaadhay habeen fog ee 3 bilood ka hor ku astaysan. Bal si kala dhigdhigan aan kugu sharaxo fiidka noloshayda dhalan rogay. Guriga waxaan ku sugnaa aniga iyo gabadh shaqaale ah aniga oo dhigana akhrisanaya oo kolba dacaladiisa u kala mushaaxaya. Telefoonka guriga la soo qaraacay. Gabadhii shaqaale ahayd ayaa telefoonkii ii soo qaaday oo samacada dhigta ii saartay. Waxa ayna maqlay nin i weydiinaya gurigii inuu yahay gurigii Cabdilxamiid. Kadib waxa aan u sheegay tirsiga lambarka inuu ka khaldan yahay oo uu guri kale soo qaraacay. Kolkaas ayuu ka cudur daartay gefka ka dhacay isaga oo codkiisu xishood ka muuqdo ayuu ii weydiiyay lambarka aan soo wacay sidaa iyo sidaa. Markaasaan ku yidhi maaha ee lambar ayaad istaba marisay. Inta uu qoslay ayuu yidhi nolosha sidaa iska ah hal lambar ayaad gadinaysaa maseerka iyo aayaha ruux aadama ah. Hadalkii ayaa nala sii jiitamay. Kadib hadalkiisa waxa uu ku soo afmeeray qof qalbi wanaagsan ayaa tahay. Waxa aan rajaynayaa mar kale in aanu wada hadalno. Samacadii ayaan dhigay xoogaa in cabaar ah ayaan telefoonkii sii eegay. Waxa ay iga dhignayd in aanu daymoonayay dariisha ballaadhan oo la iga furay qorax ka soo baxa. Maalinka laga bilaabo waxaa naga dhex unkamay xidhiidh la yaabkiisa wata. Waxa uu ahaa xidhiidh soo shabaha riyooyinkaydii aan ku riyooday. Xidhiidhkaasi waxa uu igala dhexeeyay humaaga aan garanaynin oo ila howraartama dhagahaygana ku soo celceliya inuu jecel yahay. Balse markan riyooyinka aan istusi jiray way ka gedisan tahay. Humaagayni waa mid dhab ah oo jira. Waa nin dhab ah oo jira oo jacaylka ii gacaloonaya dhagahayga ku soo celcelinaya. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu iga codsaday wejigayga inuu aan uga faalo ugu tibiyay. Kadib waxa aan maqlay isaga oo leh maxaa ka qurux badan. Waxaan kaliya oo aan uga faalooday qaabka ay u yaalaan gacmahayga curdinka ah. Kolkaas ayaan maqlay isagoo farxad la kala batay oo si laabkac leh u leh lugahaagu haddii ay u qurux badan yihiin sida gacmahaaga waxa aad noqonaysaa quruxley la mid ah caruusadaha ee dhallaanku ay dhaqdaan. Hadalkaas afkiisa markii uu ka soo dhammaaday ayaan dareemay gacantii samacadda aan ku hayay in ay gariirayso. Waxa aan eegay labadayda lugood. Hal cabaar ah ayaan aamusnaa. Kadib aniga oo u jawaabin ayaan samacaddii telefoonka tuuray. Habeenka
il iyo baal iskuma aan keenin indhahii aniga oo ku soo jeeda ayuu waagii igu bariyay miyaan jecelahay haa waan jecelahay dareenka aan u hayaa jacayl uu ka badan yahay 3 bilood ee aanu wada hadlanay miisaankayga waxaa ku kordhay 5 kilogram dhakhtarkii lugahayga markii uu baadhay wuxuu qayb muruqyada ka mid ahay in ay shaqadii dib u bilowday waxa uu qoyskayga u sheegay inuu aad ula yaaban yahay qaabka muruqyadan fayadoodu ay ugu soo laabatay muddadan dheer kadib kolkaas ayaan yaqiinsaday ninkani inuu noloshayda yahay balse waa nolol ku sii siqaysa in ay iga furxmuruxsato maxaa yeelay waxa uu doonayaa inuu ii arko haddii uu ii arkana waan isweynaynaa noloshayda waan waayayaa murug iyo taaha ayaan ku suganahay sidee ayaan u badbaadiyaa ila tali maxaan sameeyaa waan dareemayaa kadeedka aad ku sugan tahay iyo jaawareerka aad ku sugan tahay waxaa la moodaa in aan daawanayo ruwaayad Greek ah oo ruwaayadaha Masriga ka mid ah lagu daawado ee lama moodo sheekadan in ay ku saabsan tahay xasaabo telefoon ku eeg ruwaayad qurux badan oo garaadkayga ka weyn talada aad iga martida tahay haddii aan u soo gudbo waxaan kugala talin lahaa xiriirkiina xasaabe telefoonka inuu ku eekaado kulanka is-aragtidana aad la sugtid intaad lugahaaga ku istaagaysid waxa aad awoodaa habeen walba inaad ku maaweelisid sheeko xeelad leh kadib hanashada qalbigiisa aad ku guulaysatid kun habeen iyo habeen muddo kadib 2 sano ka bacdi markaan taladii ka qaatay Dr. Mustafa Maxamuud waxaan 2 sano ka bacdi ku guulaystay inay sayigayga la migo markaan dhakhtarku ii sheegay war farxad leh wuxuu ii sheegay in xanuunkan lugahaygu ka budsaday muruqyadeedina ay si toos ah u shaqo galeen ana lugahayga caafimaad qabaan ku istaagay ayaan sayigaygii maalmaha ka mid ah la hadlay una sheegay in maanta ay noqotay in maalinta aan isaarkale sayigaygii waan isaarnay kadib markuu yimaaday arisaarati ka bacdi ayaan uga sheegay xaaladan ku sugnaa waan u qaadan kari waayay waan ku guulaysanay inaan wala hadalno aan ku fahansiiyay xaaladii aan ku sugnaa soo bandhigay in guursano kadib waan isguursanay kadibna ayay qisadaas ku soo dhamaatay qisada waxaan ka dhandhansanaa waa xeeladaas samirka inantaas ugu simraysay taladaasna ay ka faa'iidaysatay qofka bini'aadankana ee laguma qiimeeyo in waxaad ka doonaysaa inay halkaasi naga muuqato inaynu samirno dadka in maalmaha u samirno waa qiso runtii cibro qaadasho mudan inta muuqaalka idin sugu imanno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi